ay shantii maalmood ee la soo dhaafay in isku day uu ka dhacay magaalada Addis Ababa isku day ka dhacay ahaa shirqool lagu mijxaabinayo geedi socodka ama hanaanka nabadgelyo dalkeena ka dhashay kaasoo fashilmay oo ayna doonayeen in hoggaanka lagu hantiyo dalka si loogu celiyo dhibaatadii laga soo gudbay marka maanta kulan ayaa jiray oo aad la socotaa madaxweynaha Somali State mudane Mustafa inuu ku tagay shalay galabtii magaalada Addis oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya casuumaad uu soo diray taasoo uu yidhi warnimo arrintii ninkii shida ahaa deeqadii iyo maartay xasaradii uu ku galgashay isaga kooxdii EPRF tayd baan xalinayaa isoo gaara marka maanta kulan baa dhacay Addis ka dhacay oo laba jeer la isarkay waxayna wararku inuu soo gaaray ila xogaala oo kaag dhow goobta wixii la diidanaa markii horeba dhibaatada ay u abuurayeen kooxaha diidanaa midnimada iyo isbedelka dalka ka dhacay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo isbedelkan ka dhacay dalka in ay qodobkii la diidanaa ayuu hadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya soo ogolaaday marka afar qodob baa ugu muhiimsan heshiiska meeshaasi ka soo baxay afarta qodob waxay ahaayeen kow arrimaha masiiriga ah ee dawlad deegaanka Soomaalida quseeya inaan totally dawladda dhexe ayna ku samayn karin wax faragelina from now wixii hore dhici jiray ee dhaqanka u ahayd Itoobiya inaan deegaanka Soomaalida wax faragelina ayna dawladda dhexe ku samayn karin qodobkaasi qodobka ugu weyn ee ugu muhiimsanaa inagana muhiimadeenno ahaba laba in la ixtiraamo arrimaha masiiriga siyaasiga ah ee shacabka Soomaalida iyo masiirka ummadda Soomaalidu cidda hogaaminaysa iyo cidda ay diidayaan inay ayaga ka go'an tahay oo aan loo yeedhin karin ummadda Soomaaliyeed qodobka labaadna kaas ahaa qodobka saddexaadna waxa uu ahaa chairpersonka oo xisbiga ninka hogaamiye Axmed Shida inuu ku laabto deegaanka Soomaalida magaalada Jigjigan tago shirweynihii xisbigana halka lagu qabto ergooyinkiisina ay soo xisho dawladdu halkaasna waxa weeyaan shirweynihii xisbiga ka dhaco maamulka cusub ee xisbigana lagu doorto qodobka afraad waxa uu ahaa in talada deegaanka Soomaalida looga dambaynayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Aadan Faarax iyo golaha kaabineyga cidda lagala xisaabtamayo sax iyo qaladba deegaanka hoggaanka waana inay tahay dawladda wax faragelinana inaan lagu samayn karin cid faragelin ku samayn kartaana inayna jiri doonin afarta qodob baa ugu muhiimsanaa hawshuna waxaad moodaa saynu rabnay un baa u dhacdoon qiiq isku qarintii faraha badnayd iyo qayladii iyo sawaxankiina halkaas inuu ku soo afjarmayaad moodaa 200 oo oday oo deegaanka Soomaalida dadkii matalayay ah waxaan ku yiri dadka Soomaalida ah iyo waxgaradkoodii ogaasyadoodii iyo hogaamiye dhaqameedkoodii oo arrintan damcay inay shalay ayagu farageliyaan uu ka diiday Axmed Shide laakiin dantu waxay ku qasabtay wixii odayaashiisa iyo garaadadiisa iyo suldaamadiisa iyo ugaasyadiisa uu ka diiday inay dantu ku qasabtay inuu hadda ku soo noqdo waxa uu ka diiday dawladda uu ka tirsan yahay ee Somali State iyo golihiisa kaabineyga uu ka diiday inuu hadda ku soo laabtay marka waxaad moodaa guushu inay gacanta shacabka ku jirto ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa aan halkan uga soo jeedinayaa dadkeenu horta waa dad aad u wanaagsan runtii dad aad u qalbi fiican weeyaan dad waxa weeyaan moralsigooda iyo waxa ay rabaan aan la dhuumanin oo Nagale